ها مصلحو ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan deegaanka Baraawe dadka ku sugan hadda masaakiinta oo afraadka waxaan ogeysiinayaa in oo mar dhow hadii Allah idmo isniinta ilaa talaadada in oo raashinka oo ugu badnaa aan bixin doono afraadka ugu deeqi doono masaakiinta raashinkaasna aan ka helnay muslimiinta oo marta ay baxseen tabarucaad u baxseen ma garad waan gartay marka qorshihiina muxuu yahay ilaa iyo meeqa qoys aad leedahay waa gaarsiin kartaan maadaama lagu guda jiro bil barakeysan oo Ramadaan dad badan oo tabar yarna ay ku noolyihiin magaalada Baraawe ilaa iyo 160 qoys kor oo martan u sii dhaafayso weliba martan oo dad qaarkii marta weli oo hadda oo cabasho kale ay socoto oo qoraal kale oo marta ay sii socdaan hadda laakiin listada lacagta gacanta ku hayno waxay tahay ilaa 160 qoys horta ma garad waan gartay tira 160 qoys marka loo eego waa tira aad u badan dabcan hay'adda Somali Community Foundation Ramadaanadii aynu ka soo gudubnay sidaan oo kale ay dadaal u sameeynayay hadda oo xaalad adag ay jirto xilli roobaadna lagu guda jiro misleedahay raashinka la siinayo dadkan xilligii loogu talagalay ayay heli doonaan waxaan isleeyahay raashinkan xilligii oo munaasib u ahaa oo loogu talagalay ayaa heli doonaan waxaan kale halkaan ka marnayn oo hadda mar dhow ila soo xiriiray xogayaha guud ee hadda Somali Community Foundation Shaa'ir Maxamed Cali ila soo xiriiray wuxuu ii sheegay in uu hadda uu gacanta ku hayo ilaa 40 qoys oo asaga oo mas'uul ka yahay oo raashinkaasna oo bixin doonaan oo saad dambe ma garad waa gartay marka raashinka muxuu isugu jiraa hadii aad shacabka u bayaaniso noocee waa raashinka waxa isugu jira sida martan bur iyo bariis iyo saliid timir iyo sonkor ayaa isugu jira iyo qoys kastana waxaan siin doonaa hal saabuun oo martan oo nadaafad iskaga ilaaliyaan martan oo ma garad oo hal saabuun ayaan ugu dareynaa qoyskiiba markaan wax siino hal saabuun ayaa loogu darayaa ma garad aad iyo aad ayaan u gartay waxaa dunida dagaal culus ay kula jirtaa cudurka dilaaga ah ee COVID-19 oo dad badan ay u dhinteen kuwa kale ay cisbitaalada u jiifaan markaad fiiriso nidaamkeed doonaysaan in dadka aad ugu qaybisaan iyadoo la mamnuucay guud ahaanba dalka in dad badan ay hal goob isugu yimaadaan maslaxo horta arintaas waa sax saad u sheegtay waay hadda bara waxa ku sugan dhaqaatiir caafimaad oo laga soo diray federaalka dawladda oo caasimada magaalada madaxda Muqdisho ay ka imaadeen halkaas ayay degan yihiin arinkaas u dhabagelayaan oo iyo qofka oo martan oo loogu shakiyo COVID-19 in ay baaris ay ku sameeyaan iyo qofka xanuunsan martan in ay jeegarayaan sidaa daraadeed annaga qorshaheena wuxuu yahay oo aan noo degsan maalintiiba ilaa 20 qoys ilaa 30 qoys inaan siino annagoo u siinayno 15 oo guryahooda weli loogu geyn doono marta si hore aan ahayn hal meel lagu geyn doono guryahoodii ayaa loogu geyn doonaa meeshaas ayaa marka qof kasta oo marta raashinkiisa gurigiisa ayaa loogu geyn doonaa ma garan aad iyo aad ayaan u gartay marka qoysaska maxaa lagu soo xulay anaga og in ay aad u tiro badan yihiin dadka baahiyaha qaba ee afurka qaarkood aan iska bixin karin qoysaska Somali Community Foundation ay garab istaagayso maxaa si gaar ahaaneed aad ugu soo xulateen horta arinkaas anigu ma soo xulin arinkaas guddiga ayaa u xilsaaran sida wakiil ku-xigeenka guddiga oo dhan iyo afayeenka ayaa u xilsaaran ayaga iyo gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha ururka haweenka maareynta masiibooyinka ayagana soo xuleen guddiga iyagoo wada dhan
ayagaana soo xusheen meel kasta ee marta ee wada galeen xaafadaha oo dhan ayaa isku qaybiyeen qof alla qofkii ka liito ayay soo qorteen sa ila tahay laakiinse waxay ila tahay marnaba martan oo ma u malaynayo qof oo markaas u baahnayn inay soo qoreen ma garad aad iyo aad ayaan u gartay bil barakeysan ee Ramadaan maadaama lagu guda jiro hay'adda Somali Community Foundation looga bartay inay garab istaagto dadka tabaalaysan ee masaakiinta ah qorshihiina ma ku jirtaa inta bisha lagu guda jiro in aad si balaarisaan goobaha aad gargaarka ka qaybinaysaan ha waxay ka mid tahay oo meesha kale had gacanta ku hayno Sanaag Bari sidoo kale gacanta ku hayna waxaynu kale rabnaa sida martan Kismaayo oo kale inaan wax gaarsiino Muqdisho hayrato badnaato marta inaan wax sii gaarsiino awoodeen haday gaarto hadii Allah idmo taas oo dhan ayaa insha Allah rajaynayna laakiin sida runtii hadda dhabta waxaan martan gacanta oo ugu hayna Bari Sanaag ma garad oo bara waxa ku xiga Bari Sanaag ma garad waa garta marka Bari Sanaag ma waxaad beegsan doontaan goobaha barakacayaasha ay ku nool yihiin ha meesha oo annaga hadda oo martan oo la yiraahdo martan oo magaalada martan oo wada jir Sanaag Bari meesha hadda annaga martan oo ka sameeynay community health clinic oo meesha naagaha ku mulaan oo dhismaha nooga socdaan weeye dadka oo barakacayaasha oo xoolahooda oo martan ka soo dhamaadeen oo martan u soo qaxeen oo meesha iska degeen oo tuulo ay ka dhigteen meeshaas waay meesha annaga wax siin doono ma garad aad iyo aad ayaan u gartay dhinaca kale Xaaji Shamcuun waxaa tahay xiriiriyaha guud ee hay'adda Somali Community Foundation meelo badan oo Soomaaliya kamid ah iminka wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa ku fatahay horeyna waxaad u garab istaagteen shacab fatahaad horey wabiga Shabeelle uu sameeyay gobolka Hiiraan hadda maadaama xaalad adagna ay iska jirto dunidii xaalad adag ay soo wajahday suuragal ma tahay inaad gacan u fidisaan dadka fatahaadaha ay saameeyeen ku sugan qaybo ka tirsan Shabeellaha Dhexe Hiiraan iyo qaybo ka tirsan gobolka Gedo wallahi maslaxo arrinkaas hadda wax iga weydiisid horta aad ayaa u maasan tahay ina oo arrimahaas oo wax iga weydiiso runtii waynu garab istaagnay hadda ka hor hadda waqtigan la joogo meesha anagaan ku suganahay waxay tahay meel oo martan oo shaqooyinkii dhan oo kala xirmeen oo COVID-19 oo cudurka la yiraahdo coronavirus sidaas daraadeed marka waxay tahay arrinkaas oo culeys yar ayaa naga hayaa dadkii shaqooyin ma hayaan guryaha ayaa lagu xayiran shaqo badan dad badan ayaa shaqada oo luusgareeyeen marka waxaan isleeyahay annagoo jecel Somali Community Foundation in aan ka qayb qaadano haddana niyadeena ay la jirto halkaas waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka iyo hay'adaha oo u qaabilsan martan maareynta masiibooyinka sida martan wasiir Hamza waxaan leeyahay iyo guddiga oo martan fatahaadyada waxaan ugu baaqayaa iyo hay'adaha localka iyo kuwa internationalka in ay iyo dadka oo martan oo muslimiinta oo waxaystaan oo ganacsatada waxaan ugu baaqayaa in oo dadkaas dhibaataysan oo la garab istaago taas ayaan oran lahaa ma garad maslax waagaag ugu dambeyntii maxaa fariina aad u diraysaa dadka ku nool magaalada Baraawe oo dhawaan raashinkaasi loo qaybin doono horta maslaxo raashinka Baraawe horta sida aan ku marlay anigu dadka magaalada martan oo iga soo warbixiyeen waxaan maqlay horta raashinka in la qaybiyay ma aha raashin had la qaybin doono horta ma jiroon ma garad waxad ka bacdi imaada ma ahna raashinkii oo yaale waa la qaybiyay inta ilaahay u calfayna way heleen inta ilaahay u calfayna marta maysa helen marka raashinka horta waa la bixiyay raashin kale had la bixinayo horta Baraab had aniga ma ka maqlan ma garad laakiin mustaqbalka dhow mar walba waxa diyaar u tihiin inaad garab istaagtiin dadka tabaalaysan halkaas ku nool si fiican had iyo jeer waxaan garab taaganahay
waad aragtay mar dhow waxaynu bixinay soonka oo bilowgiisa ilaa soonka hor dad dhibaataysnaa oo bacooyin oo ilaa 40 qoys ayaa bacooyin u qaybinay raashin badanna waynu bixinay ilaa iyo hadda raashinkeen wuu socdaa raashinkii ugu badnaana waa hadda u sii socdaa kan waa kan aniga had ku sheegayo weeye marka alxamdulillah waxaan leeyahay masaakiinta Baraawe dadka danyarta ah hay'adda Somali Community Foundation asaaskeedu wuxuu yahay in had iyo jeer aan garab taagnaano masaakiinta caawino waa shaqadiina intaas waay ma garad aad iyo aad u mahadsantahay Xaaj Shamcuun waxa uu ahaa xiriiriyaha hay'adda Somali Community Foundation Xaaji Shamcuun Muuye oo isagoo ku sugan dalka Mareykanka qadka telefoonka iigu waramay aad u mahadsantahay